السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتيدا kusoo dhawaada muuqaal cusub oo aan idiin soo sameeyay please haddii aad ku cusub tahay janaalka hana jaafule subscribe si like dheh share dheh comment ka bixi aad iyo aad u mahadsantahay haddii aad hore noola joogtana waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan leh ay noola socotaan dhiirigelin aad u wanaagsan ayaan idinka helay soo maanta muuqaal cusub ayaan idiin wadaa muuqaalkaasi waxaa waaye duulsho masaari iyo duulsho Soomaali ma kala ahano duulsho masaari maanta idiin wada waxyaabo badan oo ka duwan yihiin duulsho masaarida duulsho Soomaalida marka insha Allah tan Soomaalida oo idiin soo gelin doona hadii Ilaahay dhaho maanta meeshan waxaan ku haystaa 2 koob oo sonkor ah koob saliid ah 3 xabo oo kun ah wax yar oo cusbe ah wax yar oo heel ah iyo maxaa la dhahay baking powder iyo 4 koob oo bur ah soo waxa sameeynaa hadii Ilaahay dhaho wax oo ma isticmaalin doona qaando ama maxay ahaydee makiinad koronto inta ma isticmaali doona hadii la dhaho waxa isticmaali doona gacanta insha Allah doolshadaaniyada doolsho caan ka ah Masar waaye Soomaaliya hadda inta badan way ku soo baahdo oo dadka hadda badan way sameystaan laakiin doolsho ahaan Masaarida sameysato doolshadeen anaga bafliya lahaa doolsho baf Soomaaliya hadii waa taqaan ukun iyo sokor iyo caan ukun iyo sokor iyo bur leeb waayo taas bakin iyo saliid iyo caani iyo rafaadkan oo dhan ma la marayo ma fahanteen marka tan waxay ku fiican tahay xoogaa way tiro badan tahay adoo ukun yar ku sameynaysid 3 xabo ukun adoo ku sameynaysid aad kuugu badanaysaa ma fahanteen marti badan ay ku qaabilaysaa marka waxaa sameynayaa gacanta maxay ahayd ku garaacaya hadda waxaan soo dhaxgeliyay 3 xabo ukunta ahayd labadeeda bakeeri oo sokorta aan ku shubanahay sokorta aad wax yar waa ka badsan kartaa hadii aad rabto cabirka aad sameysanaysa saxanka aad haysato cabirkiisana way ku xiran tahay wax walbo ani saxanka aad hadda isticmaalayo saxanka foornada waaye kuukarka caadiga ah foornadiisa saxanka ee wadato waaye marka hadda sokorta iyo waxa si fiican isu soo dhaxgelinay iyo ukuntii sokorta ilaa ay kaaga dhalaalayso ee kaaga dhamaanayso bilis walaaqtaanka ha ka daaynin waxa ku soo shubtaa hadda bakeerigi oo maxaa la dhahay saliicadeed ahayd aad subag waa isticmaali kartaa laakiin inta badan saliicadeed ku fiican tahay doolshadaaneyto marka ka saahe saliid iyo adeegan kale haddana si fiican isu dhaxqaadsiinayna بليس جنالك دي أكو عصبت هاي سبسكرايب هنجا بخيلن هنا نجي لابين برتيري جديد ندعكو سي أصحاب تاعنا سي جارسيسي وفائدة السن هذه أضم هاتسنت هاي حاسمينا مركز سليدي يو سكرتي يو كنت سفي عنها سود حقلنا هدي الله رالك نقضه هاي سلسو عنه انت سكبي عدو حاسمين دونو هذا حسوا قاعدين هدي الله يراهدو caanihi aan soo qaadanayna insha Allah caanihina ku shubanayna caanaha hadda waxa ku daruyaa 2 bakeeri gadaalna haafa uga baahday aan ku darsan doona insha Allah waa isla soconayna waa ila arkaysiin si walba uu sameeynayo iyo wax walba aan ku daraayo waa isla soconayna hadii Ilaahay awood la raali ka noqdo marka waa ka saahay 2 koob oo caano u jeedino umleena meesha siitu ku soo shubtay gadaal uga baahan doona haaf kale toot oo caano ah sokorta muhiim waxa ah doolshaha sokorta muhiim ah ina burburisid ma fahantay sokortan way kala tahmahan oo mid waaweyn waa mid yar yar oo ani mid yar ah haysta si taane waqti uu qaatay ina burburiyo ma fahantay dhalaasho marka waqtiga ku qaadanay inay dhalaasho oo jeeda amleena gacanteeda marka soo qabto wali waxa dareemaa inay sokorti maxay baaqsi taasoo ina sokorta si fiican u burburisaa hadda waxa ku darsanayaa heel vanilla waa ku darsan kartaa laakiin ani heelkan doorbida aad caraftiisa zaid oo caraf ma sha Allah oo siina doolshooyinka ma fahanteen wixii doolshay ani waxa aad u jeclahay inaan ku isticmaalo heelka waxaan ku soo daray wax yar oo cusbe ah cusbada miska badinayna aad dhadhan yar rabnaa inaan si samaahane muhiimad gooni ama noolaha cusbada marka wax yar oo yaani fariiso ku soo daray ujeedin marka hadda waxa ku soo darsanayna baking powder waa 2 qaando laakiin anaga waxa isticmaalaya gacanta gurta ma fahantay gazac uga soo daraya bakinka so waxa igu naqatina qaandada fuudeeda ii soo dardarsanto saasa 3 jeer ugu dar laakiin hadii maxay si sax loo soo qaado waa 2 qaando oo buuxbuuxdo marka heelkii ama jab weyn meesha ku arkay heela ka bixinay marka insha Allah waxaa sameynayna marka
burkeena hadda soo qaadanayna insha allah. Burka ku shubanayna si fiican isu dhex qaadan waa alaabtaaneyto. Bilis janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, like dheh, share dheh. Muuqaalo badan oo aad ka faa'iidiin ayaan hore usoo geliyay insha allah. Kuwo kale oo aad kasii faa'iidaan ayaan haddana idin soo gelinayaa. Dhiirigelintiina iyo yacni la socodkiina waxay ii noqonaysaa qudwo aan hore u qaado insha allah. oo hor u socod fiican aan yeesho wax walba oo maxayda aan fahansanahay ama aan aqaan inta ilaahay i baray ah maxayda inaan idinkaga faa'iideeyo ayaan maxayda ku dadaalaya hadii ilaahay dhaho. marka waa kaas ay nala socdo barnaamijka si share gareeya hadii ilaahay dhaho dad badan ha gaaro waa kaas fiican isu soo dhex qaadsiin oo jeedii marka caana u baahday waa u jeedaa way ugu adag tahay mahano marka caana u baahday caanaha seetu inaan ku soo darsado waaye bakeeri haafkiis adi waa qiyaasi kartaa qofku wax qasay gacantiisu ka dareema mahano in wixii u tooseen iyo in maxay ku adag tahay marka waa kana insha allah intaan haddana si fiican isu soo dhex qaadsiinayna isla socono di ilaahay dhaho. marka hadda waxaa sameynayna hadii ilaahay dhaho doorsheen si fiican isu soo dhex qaadsiinay saxankaanidkii foornada waaye saxan dhala isticmaali kartaa saxan maxay macdan xataa waa isticmaali kartaa saxamo la soo sameeyo waxaa jira dadkii markan oo digsiyaashii waxa seetu sameeyaan xataa jiro oo la dalbado la sameysto maasha allah iyagana waa ku sameysan kartaa qiyaastaada intaas u sameysatid. marka hadda waxaa kusoo shubay saxankii xoogaa bur iyo maxaa la dhahay saliid cadeey aan kusoo shubay si aan hadhoobtu nooga dhigin doolshadana hadhoobdii kale way nooga dhigay mahinohe. marka waxaa sameynaynaa intaas si fiican usoo marmarsiiyey ilaa geesaha kasoo marmarsiiyey kabacdi waxaa sameynaynaa doolshadeena kusoo shubanaynaa furinkaa gelina hadii ilaahay dhaho 180 ugeey adi muddo daqiiqadahana maana fiirin laakiin adi 25 daqiiqo wax camal ama 20 daqiiqo ugu badnaanay maxay ahayd ku jirtay ilaa qada karsi waxba ku mashquulo daqiiqad maba u qabaninba. marka alxamdulillah saana u jeedin oo quruxda badan leh oo guduudka noogu soo baxda mana naga gubanin yacni cadaan oo aan la fiiri karin managa aha alxamdulillah. marka la socod wanaagsan doorshadu xirta inaa la socotid waxaa kaloo idinkaga ilaabay waxaa ku duray qor yar ku duray markii aan kasoo dejinayo oo fiirinayay si aan u ogaaday in biseelkeeda la gaaray in kaleetood saas daraadeed qoriga hadii uu biseel uu yahay qoriga nadiif ah ku soo baxay hadii ay wali ciirinta oo dhiman tahayna waxaa ku soo baxaysa in xoogaa qoyaan uu leeyahay qoriga. marka sidaas ku aqoonsanay hadda marka waa soo jarjaranaynaa hadii ilaahay dhaho geesaha horta iska bixiyo ilaano doolsho masaari waa la wada yaqaan mahano inta taqaano inta aqaan hadda ogaada doolsho masaari dhinacyada ma aragtay dhaxde badana ka toostaa dhinacyada xoogaa qolof yar ka yeelataa inta badan. marka dhinacyada geesa isaga bixinaysa inta quruxda badan oo toosan ee noogu soo baxda waa kana mujeedaas u bixin way dhinacyada waa ku goosan kartaa adi laakiin ani waxaa rabay inaan idin tusiyo qaabka ay ku soo baxday oo saxda ah saas daraadeed kaga wareejiyay wali way kulusha xataa waxaa fiican in cabaar aad sugtid intay ka qaboobayso laakiin waqti ay haymahan waani. marka waa kaas hoosteeda saa u jeedinay ku soo baxday aadka qurux badan fiir guduudan ku dhakor iyo hoos isaga egta yaa macaankeeda lagama sheekeyn karo maasha allah tabaarakallah waay. marka isla socono insha allah saxankaas soo wada saaranayna hadii ilaahay dhaho maxay ahayd wali way kulusha way noo qoobaysaa galabta casriyeena dhacwa ma fahantay. marka insha allah inta muuqaal kale oo kan la mid ku kulmi doono hadii ilaahay awoodda uu raali ka noqdo waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin sida ay la socotiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa idinkaga mahad celinayaa. please subscribe iyo share iyo like iyo comment igana si maxay anaga dhiirigelinay noo tahay insha allah hadii ilaahay dhaho waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo caafimaad iyo barwaaqo inaad tijaabisaan doolshadaaneyta oo maxay isku daydaa walaa casriye aad u fudud waa gurigaaga adoo jooga ma aragtay duhurka inta ilmaha dugsiga ka kala jiraan le u sameynaa galabtina waa kana casriyooda maasha allah.